بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ku hadlaya codka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan warbixin kooban ka bixiyo howlgalladii bishii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kaga safeeyay argagixisada gudaha dalka. Haddaan ka bilaabo qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ka safeeyeen saldhiggii ugu weynaa ee ku lahaayeen Camaara iyo Eerideeda cagta ay mariyeen qasaarooyin lixaad oo u geysteen. haddaan ku xujiyo qaybta 12aad Beledweyne iyo agagaarkeeda saddex saldhig ay ku lahaayeen cagta la mariyay waa la burburiyay inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar ilaa iyo Mahday taliyaha qaybta 12 Kanaal Tareedisho waxa uu ka sifeeyay meelo wadooyin ay isaga gudbi jireen oo ay halaq mareen ka dhigteen waxa uu kaloo ka saaray miinooyin badan ee rabeen dadka muslimka Soomaaliyeed inay ku laayaan dhagarlaawayaasha. haddaan u soo gudbo qaybta 6aad ee Baydhabo meesha la yiraahdo Diisoor iyo Bakool saldhigyo badan ay ku lahaayeen dawladdu ciidankeeda xoog dalka Soomaaliyeed cagta mariyeen saldhigyada oo dhan waa laga saaray waa laga guuleystay afka buul laga dhacay ilaa haddana waa la bacsanaya. sida la socotaan Shabeellada Hoose Jannaale wadadii isku xiriisay Buufo Bacaad ilaa iyo Jannaale oo ay ku xireen miinooyin fara badan iyo dhowr kale wado oo isku xirta Jannaale ilaa iyo Oodhigle waxa laga saaray miinooyinkii wadooyinkii waa la falay dadkii shacabka iyo gaadiidkii socodkii waa la isku marayaa dhammaan gobolada dalka iyo degmooyinka cadawga waa laga sifeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa guuleystay cadawgii waa jabay wax yar oo haraa oo baaqi ba haray ayagoo wana daba soconaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaanu ka safeyno dalka wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.